الله الرحمن الرحيم marti sharafta kala duwan ee ka kala socoto qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka bahada waxbarashada dhalinyarada haweenka hay'adaha civil society ee ka howlgala gobolada dalka hay'adaha kala duwan ee qeybaha kala duwan ka shaqeeya dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii aad kaaga mahadcelinaynaa kasoo qaybgalka kasoo qayb gasheen shirkan oo aan ugu tashanayno xaaladda dalka guud ahaan iyo doorashooyinka dalka iyo wadahadallada siyaasadeed ee dalka ka socda ee la xiriira doorashooyinka sidii maaragtaa talada bulshada rayidku ay qayb ugu lahaan lahayd waxaan la soconnaa in muddaba inay jireen khilaafyo siyaasadeed oo hareereeyey maaragtaa horumarka dalkan uu ku socday dowlad dhiskii caqabad badan ku abuuray sidoo kale su-aalo badan geliyey midnimada dalka taasoo la xiriirta doorashooyinka dalka la filaya in la qabto oo dib u dhac ku yimid iyo aragtiyo kala duwan ay kala qabeen siyaasiyiinta dalka hadday ahaan lahaayeen heer federaal iyo heer maamul goboleedba taas oo ilaa haddana xalkeeda lagu mashquulsan yahay waxaa dhacay isku dayo badan oo ay sameynayeen soomaalida gudaheeda oo ay dowladdu ay fidisay gogolo markaa looga hadlaayo sidii xal loo gaari lahaa nasiib darro gogolahaasieeto sidii la rabo ma naqan wixii la rabay in laga gaarin lagama gaarin hadda aan wada soconno waxaa gacmaha kula jira oo dhexdhexaadinta qayb ka ah beesha caalamka oo runtii iyagana ilaa hadda la tacaalayo sidii xal loo gaari lahaa bulshada rayidka oo qayb ka ahayd dadaaladaas faraha badan oo la sameynayay iyadoo ay kulamo la yeelanaysay madaxda dalka hadday ahaan lahayn madaxda dowladda federaalka hadday ahaan lahayd kuwa heer maamul goboleed hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta kale oo mucaaradka intaba aanu la yeelanay kulamo la xiriira sidii la isugu soo dhaweyn lahaa xalin loogu gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ayaa wuxuu soo gaaray dadaaladaas ilaa hadda meesha aan joogno oo ay shirkaanba ay qayb ka tahay dadaaladaas hore loo sameeyey inuu maaragta wax kusii beeriyo dadaaladaas runtii waxaa babar socday beesha caalamka marka waxaa moodaa in wixii ay fara bateen oo ay qeybo dadka kala duwan ay gacmaha kula jiraan intaas iyadoo la leeyahay bal hala dadaalo hala sameeyo laakiin haddana aad moodid gacmahaas faraha badan inaysan wax xal ah aysan soo kordhin ilaa haddeer maadaama bulshada rayidka marka qayb ay ka ahayd dadaaladaas heeto oo beesha caalamkan ay la kulmaysay dowladdana la kulmaysay siyaasiyiinta la kulmaysay ayaa waxaa technical group oo bulshada rayidka ah oo maamul goboleeda iyo oo dhan ka kala socda ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay lahaayeen fogaan aragga dood ka yeelinayeen arrimahan sida wax laga yeeli lahaa waxyaabaha ugu miinsanaa marka oo laga doodaa waxay ahayd war see xal loo keeni karaa see dadkan u heshii karaa marka waxaa ka dhalatay shirarkaas waxaa ka dhasheen su-aal ah war annaga haddaan ku mashquulno dadka inay xal gaaraan xalna isu imaaneen haddii bal annagana la weydiiyo la yidhaahdo maxaa xal u aragtaan maxaad sheegi kartaan ilaa waxaa mashquul ku naqanay keliya inay dadkaan heshiiyaan ku cadaadino laakiin haddii la yidhaahdo bulshada rayidka idinka maxaa lagu heshii karaa oo miis soo saari kartay haddiina la yidhaahdo maxaanu dhihi karnaa oo sheegi karnaa marka taas su-aashaas waxay noqotay su-aal marka runtii anaga naftirkeena aan marka u aragnay inay tahay muhiim in loo helo jawaab maxaa yeelay marka aad fiirisid qeybaha hadda ishayo oo dowladda federaalka iyo mucaaradka kasoo horjeedaba markay hadlayaan ama ay ku doodayaan aragtidooda waxay yidhaahdaan aragtidan waa aragtida shacabka qabo ma dhahaan aragtidan annagaa qabno waxay yidhaahdaan aragtidan shacabkaa qabo waxaan la soconnaa shirarka ka socdo hadda dekaale iyo kuwii ka horreeyaba in wax feedback ah ama wax ku soo celis aan lagu soo celin bulshadii la weydiin aragtidoodii aanan dalkan magaalada hadda aan joogna aaba laga qabanba waxa la yidhaahdo town hall meeting meelaha oo dadka loogu bandhigo aaraada iyo fikradaha si talooyinkooda loo dhagaysto inaysan dhicinba marka laga reebo shirari oo goosgoos ah oo bulshada rayidka ay qaban marka iyadoo taas laga duulayo ayaa waxaa muhiim noqota marka su-aashaas in laga jawaabo loogana jawaabo in lagu cabiro aragtida shacabka ay ka qabaan arrimaha xalka loogu raadinayo siyaasadda khilaafka siyaasadeed marka shirkan wuxuu qayb ka yahay sidii loogu jawaabi lahaa su-aashaas in la helo maaha oo keliya in laga jawaabay isla markaasna la xaqiijiyo hirgelinta wixii meeshaan ka soo baxo waxaan soonso ay qorsheynaysay labada maalmood talada inta ka soo baxdo inay yeelato howlo oo u ah daba socdo oo markaa lagu xoojinayo talada inta ka soo baxdo inay noqoto marka talo runtii ama wax ku beeriso wax ka bedesho talooyinka faraha badan oo ay soo bandhigeen mucaaradka iyo dowladda amaba ay noqotaba tii ay ku heshiin lahaayeen ama dalkan loogu samata bixin lahaa khilaafka siyaasadeed marka aad iyo aad ay muhiim u tahay in maskaxda la dhalaaliyo fikir badan la soo jeediyo iyadoo la isticmaalayo way arrimada loo lahaa wixii lasoo dhaafay iyadoo la isticmaalayo xogaha mataqaanaa dalka ka jira in maaragta aan la nimaan karno qorshe loogu gudbi karo khilaafka hadda siyaasadda jira isla markaana naqon karo wax shaqey kara
suurtagalna ka dhigi karo in 4 sano kadib haddana aysan nagu soo laaban waxa maanta aan arkayno. doorashadii hore ee 2022 dhacday oo ay bulshada rayidku dadaal badan ka muujisay, dadaalkeedu wuxuu inta badan xoogga saarayay sidii loogu bixi lahaa khilaafka markaas taagnaa ee lagama fikirin inuusan dib u soo laaban. nasiib darro 4 sano kadib waxaan joognaa meeshii 2022 wixii la isku haystay ayaa la isku haystaa, dadkii is haystaan weli is haysto. marka taas anagoo ka faa'iidaysanayno in hadda waxa xal u aragno inay noqdaan xaqiijiyo inaysan dib waxa nagu soo laaban, tan hadda taagna in laga gudbo. marka taasa ugu muhiimsan. waxaan is leeyahay dadka intaan fadhiyo haddii maskaxdooda iyo taladooda aruuriyaan in la heli karo talo loogu gudbi karo arrintaas, xalna loogu heli karo, wax bulshada markaa ka turjubaani karo ama ay fahmi kartane aan miiska soo saari karno. marka waa ku dheeraaday hadalka, waxay ahayd keliya inaan ifiyo labada maamood meesha aan waqtiga gelinayno inay ahaato meeshaas aan u soconno. waxaan rajeynaa haddii alla yidhaahdo berito in aan heli doono su-aashaas jawaabteeda, isla markaana aan heli doono wax aan markaa aanu ku dhiirigelino dadka, isla markaana aan suurtagal ka dhigno in la qaato hirgelinteeda annaga u qareemi doona haddii alla yidhaahdo. marka aad iyo aadaan idinkaaga mahadcelinaa. waxaan rajeyn doonaa berito inaan bal heli doono xal, annagoo su-aashaas jawaab u heli doono, sina naqon doonto midii markaas xal u noqoto. aad iyo aadaan idinkaaga mahadcelinaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.